نجيب وحمكا عصدا adigana baahida badan iyo su'aashan kugu nacay xun baa codsan samakil warkaba maxaad rabtaa iska daa sheeg waxaad u baahan tahay gurigan cidlada 4 saac waan ka caajisay in yara waqtigaaga kamid inaad isiisidna ma ogolid wiilkayga yaraan weeshanayna hooyadaabad u geysay ehelkayga asxaabtayda u tagi lahaana ma ogolid maxaad sidan iigu ciqaabaysan kugu sameeyay taad keentay watii kala ka daran waxa aanu kibir baan arkaa wax kasta guriga ku dhigay maxaad dibadda uga baahan tahay ma wareeg bad u ooyeysaa hadalkayga dhan waad bedeshay aan soo wareegaalaystana kuma odhan waxaasoo dhan iska dhaaf wiilkayga yaraan unu baahanay ii soo celi inantaada isuma haysatid haa iyadana waan kaxaysanayaa hal sana ha gaadho inta ay sanadka gaarisa kaliya kula joogtaa ku biyacab halo ku soo dhawo walaal carwada alnajax waxaan doonaynaa inaanu kuu diyaarinno gogol odaygaagu nagu kaabilamiyey waxaad noo sheegtaa midabka aad jeceshahay madowga yacni waxaan kaaga dhignaa madow gogasha midabka aad doontaan ka dhiga muhiimii ma aha laakiinse waxaan kaaga jawaabay su'aashaadii weydiisay midabkaan jeclahayna waa midabka madowga okay gogashana waxaanu kaaga dhigaynaa madow waad mahadsan tahay waxaan ka mid ahay dadka xiiseeya midabka madowga ah ilaa yaraantaydii waxa aan jeclaa wax kasta oo madow ku suntan yahay laakiin marnaba isma lahayn noloshaada ayaa madow geli doontaa qof aan farxad ku siinaynin waqtina kula qaadanaynin dareen naxariis lehna kuu muujinaynin inaad guri weyn oo qasri ah kula noolaato cuntada ugu qaalisan aad kula cunto waxaa 100 jeer ka qiimo badan adigoo qof xabadda roodhida meel cidla ah kula qaybsada waxay ka keenay qadar waxaan iga ka fogay qadar labada qadar dhaxdoodana waxaan ku waayay qalbigayga السلام عليكم
وعليكم السلام. iska waran mahad. waan fiicanahay. waatuma qofka ila hadlaysaa? waa aniga Nasriin. ima garanaysid? maya walaal, kuma garanayo. Nasriin waa tuma? waa aniga mahad. Nasriintii idinkoo yareer aad meel ku soo wada korteen. ima xasuusatid miyaa mahadow? oh my god, Nasriin Axmed Cumar. haa mahadow, isma lahayn laakiinse inaabtigaa mahad ayaa ku aqoonsan weynaya. waan ka xumahay Nasriin inaan ku aqoonsan waayey. la yaab ma laha inaabti. 10 sano ka hor ba iskugu keen dambaysay. toban sano waa waqti dheer inaabti. haa walaalo, waa waqti aad u dheer. haye Nasriin, sidee tahay? iiga waran xaaladaada iyo waayahaaga nololeed. halkeed ku nooshahay iminka? waan fiicanahay mahad. waxaan ku noolahay Hargeysa. Nasriin, iga raali noqo. subaxii aan idinka soo tegayay kuma sheegin bixitaankayga. waan jeclaa inaan kuu sheego, laakiin way dhici weyday. iga aamus mahad. sorry inaabti. mahad, walaal halkeebaad ku qarisay muuqaagii? 10 sano muuqaaga ma arag, codkaagana maan maqal. xageebaad imika ku dhuumatayne? imikana xageebaad ku nooshahay? kaamaan dhuuman bay inaabti. markii aan aabbaha isqabsanay baan gurigeennii ka soo tegey. intii hore Gebeli baan ku noolaa, imikana Suudaan baan joogaa in wax ka bartaa. maasha allah, waan kuugu hambalyaynayaa waxbarashadaada. hambalyo. mahadsanid inaabti. laakiin walaal mahadow, weli ma guursatayna? may weli maan guursan. sax, bagaanad u guursan. adiga ma lagu guursaday Nasriin? may inaabti, weli. sax, maasha allah. laakiin mahad, maxaad u guursan weyda walaalo? adigaan ku sugayay inaabti. mahad, adigu maxaad u guursan weyday Nasriin? adigaan ku sugayay dee. waad iga baraajaysa. isma lahayn. noloshayda mahadba dib u arki doontaa. u qaadan waa bayna igu tahay. si kastoo loo kula fogaado, haddii la nool yahay waa qasab in mar kale la is arkayo.
mahad ninkaygii baa albaabka garaacaya ee waa inoo iyo mar kale. wallaahi maa lagu guursaday Nasrin. habeen dambe baan kuu warramayaa inaabti ee waa inoo iyo mar kale. khayr badan baan kuu dhaafay. What